Waa maxay calaamadaada gelitaanka ganacsiga? Waxa uu go'aansaday inuu ka ganacsan doono isbedelada, sidaas darteed calaamadiisu waxay u baahan tahay inay iibiso xoogga qiimaha iyo kordhinta mugga. Halkii uu ka iibsan lahaa taageerada, wuxuu iibsan lahaa nasashada ilaa heer cusub ama marka uu jebiyo caabinta celceliska dhaqdhaqaaqa ama qiimaha. Goormaad iibin doontaa? Goorma ayuu qorsheynayay inuu iibiyo shares? Haddii uu lahaa khasaare joogsi, wuxuu u baahday qorshe uu macaash ku qaato. $12 ayaa bartilmaameedkiisa ahaa, laakiin ka waran haddii ay kaliya tagto 1199 kadibna dib u noqoto. Miyuu noqon lahaa wax lagu qoslo si uu u soo celiyo faa'iidadiisa oo laga yaabo inuu xitaa lumiyo lacag haddii ay sii socoto hoos u dhac, xitaa ka hooseeya qiimihiisa iibka? Waxa uu u maleeyay in qorshaha ugu fiican uu yahay in la raadiyo khasaare joogsi iyo faa'iido haddii ay dib u soo noqoto 5. Haddii ay si joogto ah kor ugu kacdo 9.85 kadibna dib loogu celiyo 9.35, wuu ka bixi lahaa xitaa. Haddii ay u socoto ilaa 1199 kadibna dib loogu celiyo 1119, wuxuu la bixi lahaa faa'iido fiican. Wuxuu iska ilaalin lahaa inuu soo celiyo dhammaan faa'iidooyinkiisa oo wuxuu lahaa qorshe uu wax ku iibiyo. Si kastaba ha ahaatee, kaydka ayaa u baahan doona kor u kac wanaagsan si uu nidaamkani u shaqeeyo. Wuxuu ogaa in suuqa dibidda ay tahay inay si fiican u shaqayso. Waxay u oggolaan doontaa faa'iidada inay socoto oo ay ka hortagto khasaare joogsi badan marka saamiyadu u guuraan qiimaha caadiga ah.